Maxamed Jaamac iyo qoyskiisu Jimcihii waxay ahaayeen reer danyar ah, Sabtidiina waxay noqdeen qoys taajiriin ah oo haysta lacag dhan $1 milyan kuna helay 24 saacadood gudahood haddaysan imika lacagtu intaa kaba sii badanin. Marka aad soo gasho baraha bulshada waxaa la isdhaafsanayay oo qof kastaaba fikirkiisa ku cabirayay iyo dareenkiisa qisada xanuunka badan leh ee qoyskan ku dhacday. Saaxiibadayda qaaliga ah ee ku xiran page-kayga iyo welibana barta YouTube-ka ee Nadra Saciid soo dhawaada. Waan ogahay muuqaalkan marka aad dhamaysatid inay dareenkaaga soo jiidan doonto, laakiin adnaha ka ilaawin inaad like saarto lana wadaagto asxaabtaada videogan siina shargare. Waxay deganaayeen qoyskani degmada Toyon ee isla caasimadda Norway ee Oslo. Qoyskan Soomaaliyeed waxa ay ka koobnaayeen 7 qof, aabbo Maxamed Jaamac iyo hooyo Aamina. Waxa ay ku nool yihiin Norway. Qoyskan Soomaaliyeed ilmahooda ugu yar ayaa wuxuu qabay cudurka loo yaqaano neefta amase naqaska. Sida oo kalena waalidiintu waxay ahaayeen qaar leh iyaguna macaan. Qoyskani waxay ahaayeen qoys iska danyar ah oo ku nool guri dowladda hoose ay leedahay amase kamuunka. Guryaha dowladdu ay leedahay ayaa ah guryo ka jaban guryaha kale oo isku lacag ma aha. Sidaa darteed qoyskani waxay iska deganaayeen gurigan yar ee raqiiska ah ee welibana dowladda hoose leedahay. Noloshooda wax dhibaato ah maysan qabin oo habi ay iskaga noolaayeen. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday dowladdii hoose ayaa Maxamed iyo qoyskiisa u soo dirtay waraaq, taas oo ay ugu sheegayeen in ay imika qaataan lacag fiican bishii. Sidaa darteedna guriga ay uga baxaan oo guri kaloo caadiya ay kiraystaan. Qoyskan Soomaaliyeed runtii arrinkaasi naxdin ayuu ku noqday maadaama gurigani uu yahay guri u jaban iyaga oo ay iska bixin karaan. Waqtigan lagu jiro oo ah waqti aad iyo aad u xun sababtoo ah adduunkoo dhan waxa saameeyay COVID-19 cudurkan oo welibana sababay xaalado fara badan sida shaqo la'aan, taas oo welibana lagu jiro waqtigii qaboobaha oo welibana uu gaadho marmar 10 amase 15. Qoyskani waxay halis ugu jiraan xanuuno fara badan maadaama ay macaan leeyihiin. Maxamed Jaamac wuxuu sameeyey markii lagu yidhi guriga ka baxa wuxuu isku dayay inuu codsi u diro dowladda hoose, kaas oo uu leeyahay waqti adag iyo xilli xun ayaa lagu jiraa, dib iigu dhiga in aan gurigan ka baxo. Mana awoodo lacag kale oo aan guri ku kiraysto maadaama ay shaqo la'aan jirto. Laakiin dowladda hoose arrinkaas way iska indhatirtay, welibana kamaysan tashanin codsigii Maxamed Jaamac uu soo dirsaday. Dowladdii hoose ayaa amar waxay ku bixisay reerkan in guriga laga saaro lana soo qufulo, iyagoo dalbaday ciidan fara badan oo welibana hubaysan. Si qoyskan Soomaaliyeed guriga qasab looga saaro ayaa waxa dhacday in ay albaabka ku soo qarqaraacaan iyadoo welibana carruurta qaar ay hurdaan, hurdadiina ay ka toosiyeen intay daaqadaha ka soo daateen askartii oo hubaysan. Maxamed Jaamac iyo Aamina run ahaantii arrinkan aad bay uga naxan iyagoo askartii ka argagaxay weydiinayana waxa ay ka doonayaan, markaasi ku yiraahdeen gurigan imika ka baxa. Carruurtii ayaa argagaxday waxaana loo sheegtay awood aysan iska caabin karaynin askartuna iyagoo in yar xitaa u naxaynin, naxariisna ka muuqanin. Waqti ay dhar ku xidhaana may siinin, gurigiina sidaas ayay uga saareen. Buuqii iyo qayladii meesha ka jiray waxaa isku soo baxay dhammaanba xaafadii jaarka. Furihii gurigana sidaas ayay uga qaateen. Kadib askartii waxay u soo bandhigeen qoyskan in ay geyn doonaan meel ay seexdaan amase ay joogaan dadka balwaddu soo ridatay amase kuwa derbi jiifka ah ee nolosha ka dhacay. Laakiin aabbo Maxamed Jaamac ayaa ku gacan saydhiyey, diidayna arrinkaas amase meeshaas, yidhina uma ogolaanayo qoyskayga iyo carruurteeda nolol sida u liidata una foolxun. Inta ay foolxumadaasi dhacaysay waxaa ku soo baxay sawaxankii dhammaanba dadkii jaarka la ahaa qoyskan oo isugu jiray Norwejian amase Soomaali iyo ajaanib kalaba. Mid ka mid ahaa dadkii ku soo baxay qayladaas iyo sawaxankaasi dhibaatada loo geysanayo qoyskan ayaa TV ka agdhawaa u sheegay kuna faafiyey qoys ay jaar ahaayeen 11 sano, xaafadana u ahaa tusaale wanaagsan in aan maanta markhaati ka ahaado dhacdadii ku dhacday oo aanan filanayn ahna tii iigu xumayd noloshayda oo ku dhacday qoyskaas oo haddana dowladdu ku samaynayso deriskayga wax la aqbali karayo marnaba ma aha. Waxaa meel kasta gaadhay oo faafay warkii oo ku dhacday qisadan qoyska Soomaaliyeed. Haddana mar kale waxaa isxilqaamay dadkii jaarka la ahaa iyagoo kaashanaya xarun yar oo ku taala xaafadda iyagoo u sameeyey lacag ururin. Lacagtaas oo loogu talagalay deebaaji in ay iskaga bixiyaan guri kiro ah.
laakiin sidii la filanayay lacagtu mabay noqoninba oo xadkii loogu talagalay ayayba ka baxday. Qof kasta oo qisadan arkana lacag badan ayuu ku caawinayay qoyskan Soomaaliyeed. Lacagtii waxay gaadhay heer aan la filanaynin oo ah 1 milyan, taasoo laga yaabana lacagtu ilaa imika inay sii socon doonto kana sii badan doonto intaas. Qoyskan waxay iibsan doonaan iska daa 1 guri, 2 guri oo welibana iyagu ay iska leeyihiin inay karaystaan iska badaaye. Dowladdii hoosena waxaa halka uga timi ceeb iyo fadeexad, welibana iyadoo laga codsanayo in ay iscasilaan. Waxa ay isku dayayaan dowladda hoose imika sidii ay u caawin lahaayeen qoyskan, gurina ugu soo iibin lahaayeen si ay u ilaashadaan sharaftan yar ee ku hadhay. Daawade, haddii aad ka heshay qisadan cajiibka ah, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo share garaynaya. Hana ka ilaawin muuqaalkan inaad like saarto. Waa anigoo ah Nadira Saciid. Waad ku mahadsantahay waqtigaaga aad ku daawanaysay muuqaalkan.